kulanti wacan daawadayaal halkani waa barteena YouTube iyo halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee aan idin hayno ee ka dhacay geeyiga Soomaalida. Qodobada aan idin hayno waxaa kamid ah aasaasihii ugu sareeyay Al-Shabaab iyo ninkii bedeli lahaa Axmed Diiriye oo la dilay iyo dowladda Soomaaliya oo war kala duwan arrintaasi ka soo saartay. Ma dhaba in wiilka uu dhalay Xasan Daahir Aways uu kamid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Barnaamijkeena ayaanu ku faaqidi doonaa haddii aad nagu cusub tahay waxaanu ka codsanaynaa marka hore inaad channelkeena YouTube iyo halbeega wararka aad subscribe inoo saarto adigoo muuqaalkan like saaray lana wadaagaya saaxiibada. ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah lagu dilay mid kamid ah horjoogayaasha ugu sareeya ururka Al-Shabaab. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka xaramka ee gobolka Jubbada Dhexe taariikhdu markii ay ahayd 1 bishan Oktoobar waxaana lagu dilay Cabdullaahi Nadiir oo shabaab dhexdooda looga yaqaanay Cabdullaahi Yare. Cabdullaahi Nadiir ayaa waxa uu ahaa madaxa dacwadda ee kooxda waana mid kamid ah kuwa ugu sharta badan khawaarijta Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Cabdullaahi Nadiir uu horay u soo noqday madaxa shuurada iyo maaliyadda waxaana uu kamid ahaa asaasayaasha ururkaasi. sidoo kale waa shakhsiga ugu sareeya oo Al-Shabaab ay u diyaariyeen inuu bedelo horjoogahooda bukaanka ah Axmed Diiriye ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Cabdullaahi Nadiir oo shabaab dhexdooda looga yaqaanay Cabdullaahi Yare ayaa waxaa madaxiisa saarneyd lacago ay sheegtay dowladda Mareykanka inay siin doonto cid walba oo xogtiisa keenta. waxaana si weyn u doondoonayay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah waxaana ugu dambeyn soo helay sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Cabdullaahi Nadiir oo loo yaqaanay Cabdullaahi Yare ayaa waxaa madaxiisa la duldhigay lacag gaaraya 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah kaas oo ay dowladda Mareykanka ee ku dhawaaqday in horjoogihii hore ee kooxda Al-Shabaab Axmed Godane sidaas oo kale isagana lagu doonayay. qoraalka lagu shaacinayay in madaxa Cabdullaahi Nadiir lagu duldhigay lacag gaaraya 3 milyan oo doolar waxa ay dowladda Mareykanka ku sheegtay in Cabdullaahi uu adeegsan jiray magacyada Cabdullaahi Yariisow, Cubayd iyo Cabdullaahi Yare uu horay u soo noqday madaxa warbaahinta ee kooxda Al-Shabaab. dilkiisa waa qodax laga siibay ummadda Soomaaliyeed oo ka nasan doonta dhagartii iyo maran habaabintii uu ku hayay bulshada Soomaaliyeed ayay tiri dowladda Soomaaliya. dowladdu waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay in la ciqaabo dhammaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed. sida ay xog ku heshay caasimadda online waxaa sidoo kale shalay la dilay Ibraahim Sheekh Xasan Daahir Aways oo ahaa wiil uu dhalay wadaadka u xiran dowladda Soomaaliya horeyna uga mid ahaa mas'uuliyiinta sarsare ee dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ibraahim ayaa waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose taasi oo faahfaahin badan aan ilaa iminka laga helin. dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin duqeynta lagu dilay wiilka uu dhalay Xasan Daahir Aways sidoo kalena xogtani ma xusin in dad kale lala dilay Ibraahim. ilaa hadda ma jirto cid sheegi karta in Ibraahim Xasan Daahir uu xiriir la lahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo in kale balse waxa ay xogtani xaqiijinaysaa in lagu dhex dilay ama lagu dilay duqeyn ka dhacday beer uu ku sugnaa. warar kale oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in wiilka uu dhalay Xasan Daahir Aways ee Ibraahim lagu magacaabo oo dhawaan ka qalin jabiyay mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana bartay cilmiga dhakhtarnimada ee Al-Shabaab u kaxeeyeen si uu u daweeyo qaar kamid ah horjoogayaashooda sare. waxa arintaasi fududeynayay baa la yiri ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Nadiir kaasi oo qaba gabar la dhalatay Xasan Daahir Aways isla markaana Ibraahim eedadiisa ah. Ibraahim ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kaasi oo aan ilaa iminka faahfaahin rasmi ah laga helin. ehelka Ibraahim ayaa waxa ay xaqiijiyeen in wiilkooda uu gobolka Shabeellada Hoose ku lahaa beer sidoo kalena waxa uu ahaa macallin wax ka dhiga mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. kol sii horeysay ayuu Dr. Ibraahim ka qalin jabiyay jaamacadda Muqdisho xilligaas waxaa xafladiisa qalin jabinta ka qayb galay aabihiis Xasan Daahir Aways kaasi oo xabsi guri ku jira isla markaana dowladda Soomaaliya ay hayso. dowladda federaalka ee Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin duqeynta lagu dilay wiilka uu dhalay Xasan Daahir sidoo kalena xogtani ma xusin in dad kale ay la geeriyoodeen wiilkaasi. ilaa iminka ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda duqeyntan balse waxaa cad in dowladda Soomaaliya ay duqeymaha dhanka cirka ee lagu beegsanayo saraakiisha Al-Shabaab ay ka taageeraan dowladda Mareykanka iyo dowladda Turkiga oo dhawaan ku biirtay howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka is abaabulay ee ka socda qaybo kamid ah gobolada Hiiraan iyo Galgaduud.
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo mar kamid ahaa ragga ugu saameynta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab horeyna uu ahaa hogaamiyaha Xisbiga Islaam isla markaana kamid ahaa aasaasiyaashii maxaakiimta Islaamiga ayaa iminka u xiran dowladda Soomaaliya isaga oo in ka badan 7 sano xabsi guri ku ah magaalada Muqdisho. Markana magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq ciidan oo loogu diyaar garoobayo guluf ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa doonaya inuu ku biiro howlgallada ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka oo ujeedkoodu yahay in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay maamulaan. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa abaabul iyo diyaar garow ciidan ka wada xeryaha ku yaala duleedyada magaalada Kismaayo. Saraakiishan ayaa maalinkii Sabtidii waxa ay kormeer ku tageen qaar kamid ah xeryaha ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyagoona ciidamada ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan sidii guluf midaysan loogu qaadi lahaa deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Generaal Ismaaciil Saxardiid Kaydsane oo kamid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in ay ka qayb qaadanayaan howlgallada uu yoolkoodu yahay in lagu weeqo awoodda Al-Shabaab. Waad ogtihiin dalka Soomaaliya waxa ka socda maanta dadkii shacabka ahaa ayaa waxa ay go'aansadeen inay iska dulqaadaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ayuu yiri. Annaga wixii hadda ka dambeeya dhufayska aad ku jirteen muddo dheer oo 8 sano ku dhow kuma sii jiri doontaan insha Allah. Waan kacaynaa dhufayskana waan ka baxaynaa goobaha ay joogaan iyo meelaha ay naga soo weerarayaan ayaanu aadaynaa ayuu yiri Generaal Ismaaciil Saxardiid oo horaan ula hadlay ciidanka daraawiishta ee Jubbaland. Generaal Kaydsane ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay haystaan dowlad Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo isku xiran isla markaana si wadajir ah u shaqeynaya. Gacmo wadajir bay wax ku gooyaan oo maanta is haysto isna taageerayo baahida aad qabteenna soo qabtiraya ayuu yiri. Waxa uu ula jeeday hadalkaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo markan xiriir wanaagsan u kala dhaxeeyo dowlad goboleedka Jubbaland. Taliyaha ciidanka booliska Jubbaland Generaal Maxamed Sheekh Cabdi Xujaale ayaa isna waxa uu yiri howlaha dhaqaaqay ee aad arkaysaan ee dabaysha ah ee meel walba ka dhaqaaqay ee sifaynta cadowga ah ayaa anaguna ka qayb galaynaa. Waxa uu intaa ku daray waxaad sugayseen oo maanta wax idinkaga farxad badan aysan jirin in aad maqashaan berito Jamaame ayaa la tagayaa maalinka ku xigtana Xagar ama waxa la qabanayaa Jilib. wax idinkaga farxad badan inaysan jirin waan ogahay waad sugayseen in badan wixii la sugaana mar bay dhacayaan ayuu yiri. Ilaahay baa ku mahadsan waana xaqiijin doonaa waanu tagaynaa ayuu yiri. qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya ayaa waxa ka soconaya howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana dowlad goboleedyada qaarkood sida Galmudug, Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay horaanba bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. gobolka Hiiraan ayaa ah goobaha ugu badan ee deegaanada ugu badan looga saaray Al-Shabaab waxaana halkaasi iska kaashanaya dagaalada ka socda ciidanka deegaanka oo macawisleyda loo yaqaano iyo ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan. Al-Shabaab ayaana gacantooda laga saaray deegaano dhowr ah oo muddo 12 sano ah ay maamulayeen. wararkii ugu dambeeyay ee geeyiga Soomaalida waad kala socoteen barteena YouTube-ka ee halbeega wararka xiligan waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar channel-keena adigoo muuqaalkan like saaray isla markaana la wadaagaya saaxiibada intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.